عيل جيلو كعبه كوعانا بديو كدررو عيلka malayko sidoo kale waxa ceelka kacaba noocyada kale ee meesiyada sida ariga iyo lo'da waa ceel caan ka ah deegaanka Soomaalida isla markaana kamid ah ceelasha ugu caansan uguna magac dheer ee geelu isugu yimaado xilliyo kala duwan كسكو عيلكن إنه جيلو كعبه إسلام كان حولها قيبه هذا كل دوان أي كعبان وفائدة بدن أوليه عيلكن أرن هذا كهر عندها لجو رجين أو واحد جرته إنه عصب أرد أسوأ حويان عيلكن واحد سوي ماده وشكل دوان أو كتم دي ملك الدوان أو جيج الصومالي ده إلا قربها كواسو أصدقائي أرمى عافمات عيلكن لو يماده وعمد ميل بدن جاره إسلام كان هذا كويسو شجعان سحوجن لو يماده مقالة ده أما تولة ده وحكوا يلا hotel ay dadkaasi seexdaan isla markaana habeenkaas ay yimaadaan sida ay bulshadu noo sheegeen kaymahan ku wareegsan ceelka waxa jooga dad u soo doontay arrimo caafimaad taas oo lagu qarasbaxo dadkuna ay caafimaad ka helaan hadaba waxaan isku dayeynaa inaan la kulanno qaar ka mid ah dadkaasi caafimaadka u soo doontay ceelkan malayko kuwaas oo ku sugan tuulada malayko ee nala socda Sheekh Maxamed Bashiir Ahmed wuxuu ku leeyahay hotel malayko 20 sano ka hor ayuu malayko xaalad caafimaad u yimid wuxuu leedahay xanuunka gaasariga xilligaas uu ku dawoobay wuxuuna go'aan ku gaaray inuu salka dhigto malayko go'aankaas ayaana u hirgalay 20 sano kadib waxaan kamid ah dadka reer malayka maanta laakiin ku cusub xilli dambe oo imaaday ka ziyaar ahaan ama imaanshaheeda 20 sano ka hor 2004 bishii lixaad baan nimid anigoo arday ah oo Suudaan ka imaaday xilligaas caafimaad ahaan aan muddo week ilaa 10 ber ku dhamaan joogay ilaa fadli waan ku raystay xilligaas galaaska labaad baan Suudaan ka ahaa marka wali qalbigan ku hayay kadib caafimaad anoo meel baan soo marmaray ilaa Turki ayaan malayko ii dambeysay sanadkii hore ayaan halkan nimid malaykana taariikhan wax badan baan ka hayay biyaheeda hadda waxaan deganahay 7 bilood meelaas sababtu waxa ay wixii aan kala kulmay xilliga ayada ah oo isleeyahay caafimaad baan Ilaahay ka siiyay kadib aan meel badan maray wixii malayko aan ka helay ama caafimaadkii marka aan dareemay أنا ملك الكهرين إسلا لبعض سنة كده مركان صون نقدينا إسلا سيدي يوانا عن درامي وحي صوبتين إنان عندها عن كوفكرو أنا وعن ماشي وحكد الصو دجان هان ويماده كدجان أصلا خير دنام بنا واحد دنام بنا ويا حنون كحلي الطيب نحن قاستريجا هاي ألسر السودان بنتجي إندسكوبيا اللي جليه إن بدن أرض بانها أرضي اللي جوتوي وضع أوجيهين كدب تركي بنتجي سعودي عربي بنتجي أنا عمل حجنا أتجي عافمان أتجي أنت صورا ولي عافماتك مجارين صابت نحيات كولون كحلي لا ما كولون كإيو جاستريجا وبدنا ألسر إلا جاري لخاطرت نيجي أوبريشن وحده اللي جاي اللي مهيو كدب بان ملكي بيت أيها وحيلها الصواب
ceelka malayko maxaan ka ognahay taariikh ahaan marxaladaha uu soo maray iyo sida lagu ogaaday in ceelkani biyihiisu daweeyaan xanuunada dadka ku dhaca gaar ahaan dheefshiidka. waxaan jeclaan lahaa inaan ceelka taariikhaan wax yar ka sheego. qarnigii 19aad waa qarnigii ka horreeyay bilowgiisii ayaan baxaritaanaan waxaan ku ogaaday ceelku in xilligii qodaalka fiican lagu sameeyay ee bilowga uu ahaa isagoo dhowr ceel keli oo xagga sare ah xilligaas ka koobnaa. taariikhdiisu way soo socotay ceelashu ceelku wuxuu soo socdaba isagoo ceel laga cabaado wanaagsanaa 2000 waxaan jeedaa 77 ama dagaalkii 77 Itoobiya Soomaaliya dhex maray jabhadu inay aad soo degeen meeshan ceelku inuu ku dhacday duqeyn daran xilligaayada dad badan ay ku dhinteen geel badan oo ku dhintay halka dhixdii hadda idin muuqata. ceelku waxay sababtay arintaasi halkii uu ahaa xilliga magaalo ahayd Garban aan jirin inuu u soo guuro dhankan hadda anagu maanta aan joogno. dhacdada kadib ceelku shuhro badan iyo in aad loo ogaado afafkiisu inay bataan oo la qodo ceelal badan oo fara badan ayaa dhacday. 40 sano u dambeysay waxa la ogaaday dadku xilli hore biyo ahaan bay raadinayeen cabahayeen iyadoo tajrubo la qaado fara badan oo dad badan la ku caafiyo la arkay in ceelashu ay yihiin ceelash biyahooda ka badan ceelasha kaleete sidaan ribadka afcariga ku diyaariyay Shiniile iyo ceel xaar iyo Bullaali iyo Shalaabo kaleete ceel ka bedelan biyihiisu inay yihiin baa la ogaaday oo dadkii inay imaadaan isku daweeyaan ayagoo gobolada kale ka imanaya. sanadii ugu dambeeyay waxay keentay in dibadda looga imaado marka oo cid walba qaraabadeeda kale u sii sheegto malakan ku raystay ceelkaas jira saas oo ahaa marka taariikhda ceelku halkaas soo martay maanta ceelasha fara badan weeye intaan raan ribada afcariga dhamaystiran ma ka sameeyo hawsha. way eega adu talbad ku leedahay maxaad la kulantaa daddan ayaa halkan yimaada arrimo caafimaad. sida runta ah ceelka hawshiisu waa waxa la yiraahdo afka carabiga mawsimi waxa waa xilliyad xilliga labada xilli ama dayrta dabayaqadeeda ah ama guga dabayaqadiisa sida xilligan ku jiray xagaaga ah ayaa loo imaadaa. bisha soon dadku ma calash ma bixiyaan way inta badan ka maqan yihiin roobka markuu jiro oo jidadku ay xun yihiin ceelka jidadka soo galo dhan badi way liideen inta badan way xidhmaan sida runta ah xilligaana lama imaado laakiin markuu roobku sii qaado oo meel la mar la helo waa la imaadaa doorkii hore meeshan dhisay way buuxday haddana way buuxdaa. hotelka kale oo nin qurba jooga Mareykanka jooga isna uu leeyahayna sidoo kale wuu buuxaa dadku meel ay degaan bay leeyihiin habeenkii waxaan la kulannaa hadda xaaliyan xilligan aan kula hadlahayo qofna meel uu degay igama helay way buuxdaa. meeshan waa yartahay waa 7 qol oo min laba ruux rajo waxaan ka qabnaa inaan kordhino laakiin hadda dadku way badan yihiin wayna buuxdaan dadka imaadana haween bay u badan yihiin boqolkiiba 70 haween bay u badan yihiin 30 kale ayaa raga inaan caloosha ay dhaqaaqday. ملك وحمد الله كلا حنون ما قبوا على الفريقان قبوا على الفريقان بانو إمد قرب الجوج بانها على الفريقون على الفريق دوامه وقتي هروي أو مريكا حق قوي أو صوت أفريقيا بلا بدل ما انتهي كل كأن أنا مركا وقتي ويرى حلي أن نقول لها وبالينو الملك ما تكتي بدل باكو عارف جيجيجا إذا بدل باكو عارف ماضي حوي وقت كاتي وحنا ردوها نقولنا يا وقت ما يست شغالانها markii daba go'aan waxaan qaatay inaan soo aado Malayko aw xalib afar yahay markii saas ku waxaan la kulmay biyo kharaaro bacabana la yiri caloosha halkaas ay tagtay buurahaas hala fooli waa la bixi aroorti waa la salaad fooda marka laga qaado yaa laba bahal bad qaadan cagaha meesha yaala waa la soo dhaamin buurahaas hala fooli laba cisho marka raacay waxaan u raaci karo waxa uu tarti iga galay bahal yar oo cadaadi waxa garan maayo maradii kala jeex waxaan idin raaciyo socodkina diyaan waxaan shaqaale baawur baan witay wama dhaqaaqi waayba waxaan idin raaci maayo dad kale way baxaan halkaan joogaa intaan ku wareegaa biyihii waxa la hal wado aani markuu igu hor yimideen aniga aani aan ku soo koray aani geel kari waayay bakeeri hadaan ka cabo ma wadi karo biyaha ma daldalaa soo wata sawaan aadaa marka ani cilad aan yar waxaan isla mad ka duwan dadka waan ku tibiray
waan ku yartay waqtigeena iskeri hadda 4 cisho bay ahay hadda alxamdulillah waxaan dareemayaa inaan soo fiicnaan hayo isbedel inaan dareemayo inta calool istaaga qabtay isbedelkii ugu badnaa dareemay ها واحد عن حاجة متخش كسمين ما سمين جرين ده كليني ما لقي جري جي هذا لما بقص بعد ما يست تاكس قال فرماسي وما له كلين ما هيسانو كون لك سيلان باليسين كيو يدلي مركا وي برد علاش ولا قبصت كي هذا واجوجي هوش انا بالله مركا بيها ايوه انا جيلان وكرر لا وود لا iyaga yaa ku sheegay xogta deeno Mareykan jooga ayaa waxaan maqlay qurba joogtii Mareykan tageen waa lagu fiicnaaday marka hore waxa la yiri waxa meel biyo kulul ilaahdo waxa la diir dhabaagteeda ku taala anoo meesha ku niyeysan baa leeyahay meesha labada ceel waa la xiray oo ma fiicna dad baa markii hore igu intaan akhbaarteeli war iska dhaaf meeshaas nadaafad male maleka waxaan maleka say tahay waan joogi jiray waan yara waan qanaa waxa la yiri biyaheeda dad badan buu ilaahay ku caafiyay caanihi geela waa barwaaq caanihi geela buuxaalka aad saasa bas ku soo raacay marka imka rajada qabsan maxay tahay rajadan qaa waxay tahay inaan insha Allah ku bogsanayo sheekadii lagu sheegay hadda koor wax haba yaraatay eeg aad ku rumayn karto sheekha waan arkay biyahan inay yihiin biyo khatar ah oo qofku markuu cabo calooshiisa ay soconayso maalinta hore hadda ku yar rafaad waa gooni laakiin maalmaha dambe waad la qabsanaysaa laakiin maxaa lagu dhibaynaa cabtaa 6 litir ma cabi karaa 3 litir ma cabi karaa oo wadi waay dadkan waxay cabayaan 6 bay ama ka badan haday doonaan ani laakiin waxaan lagama yaabana 3 ka badan ma cabi karo maanta waan ka badiyay 5 baan gaarsiiyay maanta 5 litir waxaan misaaki gaari way halkaas ka fadhiistay ana meeshan ku tukanayaa baan waa hagaag daawadayaal waxaan ku sugannahay Malayko waxaan u booqanay mid ka mid ah hoteelada ku yaala Malayko waxay kulmisay qurba joog ka timid Mareykanka Soomaaliland Hargeysa iyo sidoo kale deegaanka Soomaalida waxaan goobtan yimideen arrimo caafimaad oo la xiriira biyaha Malayko oo lagu sheegay inay dadku si fiican uga caafimaadaan Yusuf Abdi Cilmi baa la yiraahdaa Yusuf waxa ka timid anigu waxaan ka yimid Hargeysa ka yimid Soomaaliland waxaan ka cabanayay allergy iyo waxyaabo calool istaag iyo gas iyo waxyaabo caynkaas Malayka niman aanu asxaabnahay oo reer jigjiga ayaa iga waramay marka ay yiri meel ceel caynkaas oo geelu ka cabo oo biyaha dhanaan laba jira marka sidii baan ku soo ambabaxay waan halkan aan soo maray garbaan imi halkan aan markaa bajaaj ku yimid marka halkan aan imi biyihii baan bilaabay aad baan u caafimaaday biyaha dhanaha iyo biyaanaha geelun baan cabaa maxaa isaga bedelay aad iyo aad baan isu bedelay imsa maalmood oo joogtay imaka bil iyo 10 habeen baan joogay bil iyo 10 marka caafimaadkaygu aad u fiican yahay allergy iyo wixii in yar un baan dareemayaa laakiin waan aad baan u fiicanahay marka caafimaad baa sii dareemay aad iyo aad caafimaadka waliba dadka odayada ah magaalada dadka deegaanka waxay yiraahdaan waa inaad muddada dheer aad sii joogto ama 2 bilood ama 3 bilood ayaa fiican marka aad baan u fiicanahay magacayga Maxamed Axmed Cabdi baa la yiraahdaa waxaan ka yimid magaalada Jigjiga caasimada dowladda deegaanka Soomaalida halkan waxaan imid arrimo caafimaad marka waxa weeyaan aad baan u fiicanahay hadda waxa weeyaan meesha waxa yaala waxa weeyaan biyo ودسا qofku waxa weeyaan calooshiisa markaa buu shubayaan ka bacdi waxa weeyaan xanuunkii aad dareemaysay isla markaa hoos ka dhacaya marka alxamdulillah rabbil caalamiin dad fiican oo meesha degan ardayaan ugu nimid oo aad noo soo dhaweeyay waqtigii hore ma lahaan jirin maxaa hotel iyo midna laakiin alxamdulillah rabbil caalamiin hadda waxa weeyaan waxaan joognaa magaaladaydu way dhakhtarkan iyaga aad isku daweynaysan ma lacag la'aan ma isku mid lacag la qaado ma waa lacag la'aan bilash bilash الحمد لله والله يا دكتور لهلي كلامه maxaa kala caqabad meesha kala kulantay والله caqabada hadda nagu daran waxa weeyaan waa anteen laan isgaarsiin maayno waxa weeyaan waa inaad buraha garbu dhawaata marka taas hadda nagu dhib badan meesha Malayko waxaan ku arkay wallahi dawaad badan marka dadka waxaan u sheegayaa inay waxa weeyaan dadka dhakhtarada ku daalay in meesha caafimaad xoog leh u yaalo ya oo koowa caanaha iyo waxa biyaha sababtoo aniga waxaan subax markaan ka ay culis baan dareemi jiray دكتور والبوان تجي وحوي يقبل واحد. حنوك أقول وحوها علوش. جاستري ما قبل لكن بهال دعار لي راه أروح على الضبان. مركز الحمد لله أريتون عشان شوقة وأدون فعنا. خضر إبراهيم حسن. هاي حاجات كتير بخير. وحن كي ما ذلك مريكان خاصة قبل كمينيسوتا. مقالة سانكلار. صح. قرب الحكتم. هذا وحن شوقة لبي تومبري. ها. وين حكتن إن أرمع في الوسط حاجات كويس. يوم مركو رانو deegaankan ahaa oo xag reer qurxay baan ahaa inkastoo ay man hadana waan la sii haystay meeshan qarasbax ay iyo dadka xanuunsanay maadaan sida daradeed dad kale iga soo horeeyay oo imaaday ba information ka siiyay sidaas aan ku soo aan ku imid meesha hay maxaa la kulantay
والله caafimaad baan la kulannay marka hore xanuun baan dareemay xagga caloosha markii aan biyihii aan cabay yani geel aan cabay wixii oo dhan hadda ilaahay inta badneed waa iga qaaday marka hadda caafimaad baan inta badan dareemaya waxay ku aray waa wax yar maan isleeyahay intee leegna joogta ku qorshaysan ilaa adu bil ilaa 20 bari qurba joog batay malayko waa tuulo hoos timaada garbo arrintan aad timid ee adiga ku keentana way ka jirtaa qurba joogtii deegaanka ee xagaa joogtay maadaama meeshan maalgelin u baahan tahay maxaad u sheegi markaad tagto ama halkan maxaad u gudbin wallahi hadda laftirkeeda qurba joog badan oo ilaa tobaneeya ah baa hotelkan kaliya joogto hoteelo kale way jiraan dhammaanna waxaan u sheegaynaa inay soo maalgashadaan waddanka sidoo kaleete ay soo siiyaan attention dhulkooda hooye iyo dawadan rabbaaniga ilaahay u siiyey bulshada qabalaha malayko waxay ka helaan fursad dadkan u soo daawo doonta ceelkan oo waxa laga iibsadaa oo suuq fiican ay ugu haystaan adeegyada ganacsiga magaalada way weynataha oo macnaha ma aragtay magaalo ganacsi fiican oo dad iman hayo oo guriyo macnaha lagu xisaabtamaya sida dadkaas laga kiraysto oo kale macnaha ma aragtay ganacsi badan oo macnaha dadkan ku iman haya si ay wax uga faa'iideyso qudhigaagi waxa gadato inaadan waayin waxyaalo badan oo xisaabo ma aragtay waxa jirta isu korisu qaad aha oo ilaa meeshii maadaama loo iman hayo inaad adiga korisu qaado ganacsiga samayso guriga la dagal lahaana aad tabayso marka dhaqaale badan bay noo leeyihiin boqolkiiba boqol macnaha dhaqdhaqaaqa magaalada wuxuu badan yahay dadka noo iman haya ee macnaha biyo cabka xagga dadkan yimid deegaanka ee biyaha iyo daawada u yimid faa'iido badan baa laga helaa waxaa laga helaa meheradihii yaryaraa waa laga kireeyaa jiifka laga kireeyaa waxaa laga iibsanayaa adhigii iyo xoolihii baa laga iibsanayaa dhib ay u qalanayeen subagii baa laga iibsanayaa malabkii baa laga iibsanayaa wixii meheradii ay qaban jirtay oo dhan wax soo gaarhaya male faa'iido badan baa lagu qabaa biyaha ceelka malayko dadka oo dhan dawo uma isticmaali karaan dadka qaar ayuu ku yahay halis sida uu qabo Sheekh Maxamed Bashiir oo kamid ah bulshada ku daawooday biyaha ceelka malayko anigu maadaama xanuunkan in badan hayay waxaan u leexday herbal medicine maadaama herbal medicine wax badan ka aqriyay ceelka biyaha hadan u soo noqdo waxaan ogaaday laba xanuun taqriiban inuu dawo ka yahay isagoo laboratory la geliyay oo hadan 100% caafimaadka aan anigu saxi laakiin practical si toos waxaan loo ogaaday laba xanuun inuu dawo ka yahay xanuunka dheefshiidka ku dhaca nuuciisa fara badan oo gastric ha noqdo ruux caloosha xiranto jaad iyo wax xalaba xun xiro ama bacteria kale ku jirta ha noqoto ama cagaarshow haya ha noqdo xanuunka labaad waa neerfaha dadka neerfaha u imaaday iyo dadka digestion u imaaday dheefshiidka labaduba wuu ilaahay ku caafiyaa waxaan kali ahaa oo mulaaxada amaan fiiriyay oo isleeyahay aad ugu wanaagsana biyahani dadka qaba kaliya xanuunka daran gaar ahaan dhakhtar u tagay meel dhakhtar u tagay oo dhakhtar ku cadeeyo dawo u qaato dadka tijaabo waxaan kala kulanay ahaa qof iyo laba aan badnayn inaan biyo fiicnaan inta ka soo hadhay qof kasto calooshiisu adag tahay oo ku dhayna caloosha way dhaqaaqday waan raystay madaxda ii qaboobi xanuunahayay maanan arag inta kale dadku ku caafimaadaan laakiin maxay daweyn hadii la yiraahdo waa dheefshiidka iyo neerfaha haddii aan u kacno dhanka dhakhaatiirta caafimaadka ee ka howlgala hosbitaalka Garbo maxay kala socdaan ceelka malayko iyo qulqulka bulshada adduunka dacladiisa uga soo caafimaad imanaya biyaha qaladh ee malayko waxaan su'aalaan hor dhignay isla markaana aan weydiinay qaar ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgala hosbitaalka Garbo ee gobolka Nogob uga soconaa malayko dadka magaalada degan iyo gobolka iyo deegaanka ila dibadda laga yimaada meeshaasi waa biyo dadka ay jecel yihiin inta badan dad caafimaad qaba ma yimaadaan dad xanuun kala duwan qaba ayaa yimaada oo inta badan aaminsan haday biyaha cabaan inay xaaladooda caafimaad ay halka ku xalismayso arrintan waa arrin u baahan runtii anagu inta badan waxaan isku daynaa dadka bal inaan wacyigelin siino laakiin midda ugu muhiimsan waxa weeyaan horta biyahani waa biyo u baahan in history lagu sameeyo
survey inta lagu sameeyo problemka la identify gareeyo biyahani waxay in la ogaado salt contactiga milixda inaga qofku maalintii waxa loo galay 6 gram oo milix inuu qaato marka meeshan waa meel u baahan runtii steering lagu sameeyo intii la yimaado maadaama noqdeen environmental health experts ama noqdeen kuwa dadka nutrition ka bartay ama dadka kale caafimaadka bartay in meeshaas baaritaan lagu sameeyo sababtoo ah dadka aad ugu xiran yihiin dadka imika loogu talagelin dadka imika dhikarka qaba kali xanuunka qaba iyo dadka wadna xanuunka qaba biya isticmaalaan halis weeyaan anagu waxaan aragnay hospitaalka la keenay dad malika ka yimid oo la keenay dad dhikar qaba oo intii biya soo isticmaalaan haladooda halis ka shay oo dhaqtarka loo keenay jirtay marka qofku intuu tagayo anagu dadka meesha wacyigelin ma siinaa inta badan qofku meesha tagaya inuu bal isbaar xaaladiisa caafimaad maadaama biyahani biyo aad saalta u yihiin bal intuu dhaqtarka intuu yimaado xaaladiisa caafimaad inuu baaro waxyaabahan in badan sameynay ka mid tahay wala at least dhikar qofku inuu qabo especially dadka waaweyn maadaama dadkaasi xanuuno ay la nool yihiin inta badan inay dadkaasi xaaladooda caafimaad ay ogaadaan dhikarka dadka qaba iyo dadka kale xanuunka qaba iyo dadka wadna xanuunka qaba iyo kuwa kale la halmaala inay xaaladooda caafimaad ogaadaan marka meeshan in short waxa u baahan tahay at hospital level kaliya arrin lagu dhameyn karayo maaha arrintan maadaama ay arrin very soo jiitamaysa ay tahay oo dadku in badan meeshan ay ku xiran yihiin in loo gooyay ay adag tahay in la sameeyo at regional level in la sameeyo baaritaan sax ah meeshan biyahani caafimaadkooda iyo badqabka biyahan xataa in la dadku ay ku shumaan markay biyaha isticmaalaan shumankaas dadku moodayaan shumankan kanit bi water borne disease baa jira biyaha ku dhasha oo laga qaado ugu horeeyo acute gastroenteritis shumankan ma shuman inuu waxa laga yaabaa shumankan ay shumayaan inuu yahay water borne disease biyahani cabayaan xamna ka qaadin yahay laga yaabaa marka meeshan waa meel u baahan baaritaan lagu sameeyo dadkana anaguna intaan karro wacyigelinta waan siinaa oo dadku inay bal dadka especially dadka waaweyn inay meesha dhakhtarka yimaadaan marka hore ay isbaaraan bal at least inay xanuunadan ay qabaan maadaama halis ay tahay